gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka Burkina Faso ayaa inta halkaasi uu joogay waxa uu kaga qayb galay kalfadhiga 15aad ee midowga baarlamaanada dowladaha Islaamka oo sanadkan ay martigelisay dowladda Burkina Faso. mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa inta halkaasi uu joogay waxa uu kulamo gaar la qaatay qaar ka mid ah gudoomiyaasha baarlamaanada dowladaha Islaamka ee shirka ka qayb galayay oo uu ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Algeria oo ay ka wada hadleen xoojinta iyo dardargelinta xiriirka labada wadan iyo sidoo kale iskaashiga labada baarlamaan. shalay oo ay wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka ka soo ambabaxeen garoonka diyaaradaha Ouagadougou ee dalka Burkina Faso waxaa garoonka kusoo sogootiyay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Burkina Faso Alassane Baka Sakande waxaana gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee walaalaha jamhuuriyadda Djibouti oo si wadajir ah u soo ambabaxay shir jiraayad ay qabteen ay uga mahadceliyeen shacabka iyo dowladda Burkina Faso soo dhaweynta wanaagsan iyo martigelinta shirka ama kalfadhiga 15aad ee midowga baarlamaanada dowladaha Islaamka. maanta ay wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho. Ibraahim Gudle Isxaaq, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.